haddii aad tahay dadka wejigooda saliidda uu leeyahay ama dadka finanka leh ama team oil face, haddaba ka faa'iidayso scrubkan adiga ayaa iska leh. waa scrubkii wejiga saliidda ka saaraya oo ka nadiifinaya. sidoo kale scrubkan wejiga nabraha ayuu ka nadiifinaya oo ka kelin garaynaya, inaba caadi maahan. team oil face ayaa iskale scrubkan, hadal ma kara, hadda wejiga dhan nadiif u ka dhigaya. haddiiba aad tahay dadka wejigooda saliidda uu leeyahay, finna ma kaa maqna waayo macnaheedu. marka haddaa finan ka cabanaysid, sidoo kale wejigaaga saliid uu la daalaa dhacay, scrubkaas isticmaal. waxaasoo dhan asaga ayaa kaa nadiifinaya. sidoo kale scrubkan wejiga uu dhaqaaya daalka, khayraada, mugdiga, madowga, nabraha xataa madowga ay reebaan. waxaasoo dhan wuu bi'inaya, wejigana liisho cad oo qurux badan ayuu ka dhigaya. wejigana wuu bilaaya, wuuna taaga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta ku xiran janaalkeena najax, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin, dhammaantiin kusoo dhawaada janaalkeena najax uga barateen waxyaabaha dabiiciga oo laisku qurxiyo. waa walaashiina hadeenisida cashar kaloo cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wadaa. sidaa titleka video kusoo aragteen, qaybta ugu horeysa video kusoo daawateen, wixii wara wixii hadal, hadda qaybta ugu horeysa muuqaalka ayaan kusoo koobay walaalahayga. marka hadda hadalka iyo warka inaguma badinaayo, ila daawada muuqaalka soo socdo. scrubkan ayaan samaysanayna insha Allah, waxyaabaynu ka hagaajinayna iyo sidaan u samaysanayna. waana ku mahadsantihiin hadda mar walbo sida quruxda badan ay ila soo. bismillah, alaabtii fududeed ayaan hadda samaysanaynaa. marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo alaabta aan ku qasano. sidoo kale marka koowaad waxaad u baahan tahay moringa, ayaa u baahan tahay moringa powder, ayaa u baahan tahay moringahana waa inuu tusaaya qaanda haf oo moringa ayaa waxaan ku shubanay weelkeeni inoo diyaarsana. moringa powderna waa kana, alaabtan ayaa la dhahaa cagaarka. inaba caadi maahan alaabtan, jirka wejiga meel ay diidaysa malahan. sidoo kale alaabtan waa la isku caateeyaa oo waa la qastaa. tinta xataa waa loo isticmaalaa insha Allah. xagga tintana waa inii soo gelinaya. marka moringa powder ayaa u baahan tahay. alaabtana meel walbo ayaa lagu gadaa, supermarketka, dukaamanka, meel walbo waa ka helaysiin. shayga labaad u baahan tahay waxaa waaye waa bariis shiidan waaye, bariis cadde aan soo shiidan waaye. marka bariiskii ayaa waxaan ku darsanay moringahani weelka inoogu jiray. bariiska hadda asagana waxaa waaye xagga finanka ama wejiga oilka wuu fiican yahay, wejigana sidiisa fitamiin uu siiyaa, wuu cadeeyaa, wuu dhaqaa, madowgana wuu ka dejiyaa. waxaa kaloo aan ku daray shayga saddexaad waxaa waaye waa caano garoor ama kaad, hadba sidii aad u taqaanid. kaadka aan isticmaalayana waa inuu tusaaya, waa kaasa noocaas ayaan isticmaalaya. caanaha fadhiyo ama caano garoor, dee qofba magac buu dhahaa. marka caanaha fadhiyo ayaa u baahan tahay insha Allah. intaasna in ay la fahanteen ayaa rajeen. alaabta intii aan isku soo darsanay ayaan xoogaa wax yar isku qasaya, kadibna waxaan kaloo ku darayaa biyo yar ayaan ku darayaa si alaabta inoogu jilcdo ama inoogu qoydo. marka biyo yar ayaan ku daray sida u jeediin. alaabtii markii aan biyihii aan kusoo daray, alaabtii ayaan haddana qasaya, waan si fiican isku dhexgelinaya. alaabta inaba caadi maahan, wejiga way nadiifinaysaa, way qalajinaysaa, saliiday ka saaraysaa, madowgay ka bi'inaysaa, nabraha waxoo dhan way ka nadiifinaysaa. wejiga liisho qurux badan oo cad oo dhalaalaya ayay ka dhigaysaa. hadda alaabtii markii aan isku soo qasay oo aan si fiican isku soo dhexgeliyay, sidaas quruxda badan ayay inoogu soo baxday. ugu dambeynteena hadda alaabteeni waa inoo diyaar. haatan oo kaliya waxay u baahan tahay in jag la isku siiyo oo la isticmaalo. marka sida u isticmaalaysa waxaa samaynaysaa, marka hore wejiga ayaad iska soo dhaqaysaa oo soo nadiifinaysaa, kadib ayaa scrubkan wejiga marsanaysaa. markii aad marsadid waxaa ku joogaysaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo intii adiga aad fursad aad heli kartid. kadibna waad iska dhaqaysaa. isbuuci maalin dhaaf haddii aad marsatid, waal adiga nabro waa isdiiseen, wejigana liisho qurux badan oo nadiif oo dhalaalaya ayuu kuu noqonaya insha Allah. xataa nabra madowga ee nabraha wejiga ku reebaan xataa alaabtan way ka nadiifinaysaa wejiga. alaabtan hadda lagama sheekeyn karo, hadal badan ma karto waa insha Allah. ila soo tijaabi oo ka faa'iideysta. haddii ay nabrahaagu yihiin nabra caadi oo wejiga si dabiici uga soo baxa, alaabtan way kaa bi'inaysaa. laakiin xaalad caafimaad haddii ay ku haysato ma sheegin, nabraha dhowr waxyaabood ayaa wejiga u keeni kara inay finan ka soo baxaan insha Allah. marka waa kaasa hadda alaabtan ka faa'iideysta oo ila soo tijaabi. sidoo kale dadka wejiga oilka leh haddii aad tahay oo wejigaaga saliid un la daalaa dhacay, isticmaal alaabtana. saliidaas way kaa yareynaysaa oo saliidaas way kaa nadiifinaysaa. wejigana weji saliid lahayn ayay kaaga dhigaysaa oo nadiifa oo liisha oo qurux badan oo dhalaalaya insha Allah. marka ila soo tijaabi oo ka faa'iideysta. hadda videogan maanta intaas ayaan kusoo afmeerayaa. waa inoo kula dambe oo xiiso leh anigoo nii sida video kale cusub walaalahayga. videogana sii share gareeyo si ay walaalo badan uga faa'iideystaan. janaalka haddii aad ku cusubtahay soo dhawo, minankaaga waa janaalka inoo subscribe gare, inoo like gare. haddii aad hore noola joogtana waa ku mahadsantahay. hadda mar walba sida quruxda badan ay noola joogtid.